kadib markay si xun ii kufsadeen banaanka igu soo tuureen dhabarkayga ayaan beelay lixdeedii lixaad meeshaan ku waayay alxamdulillaah wax ii qabta waa waayay nasiib xumo wax cadaalad iyo wax ii qabta waan waayay qof walba arrintaas aan la wadaago wax ii taraya damba jirto bartaanaan fadhiyaa lixdeedii lixaad waa beela ma shaqaysan karo waxaan rabaa hooyo Soomaaliyeed ahay cadaaladda maba u jeedi Soomaaliyeed waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed waxaan idinka codsanayaa inaa fiidiyowga hadduu idin soo gaaro idin share gareysiin ilaahay dartiis ugu share gareysiin qofkii caawin karana dal idib soo caawiyaan u baahanahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo magacayga shukri aadan gaarane qiso igu dhacday hadda ka hor anigoo jooga Sacuudi Carabiya hal sano ka hor cidaan u shaqaynayay oo 6 nin ayaa hal mar wada kufsadeen ilaa aan ka miir daboolmo on ka dhiig baxo ayay habeenimo banaanka igu soo tuureen kadib dad Soomaali ah ay qaadeen oo isbitaal geeyeen oo banaanka iga qaadeen kadib mar alla markaan soo naaxay dhaqaatiirta waxay ii sheegeen dhabarka iyo neerfaha inay wax iga soo gaareen kadib wadankayga ayaa la igu soo celiyay gurigayga imaaday ilmahayga ayaan u imatay aabahooda aabiye markuu xaaladda aan ku sugan markuu arkay wuu shoogay wuu waashtay cidiisa ayaa iga wateen wuu ku dhuftay aabiye ilaa aad uu xirxiran yahay qof xanuunsan waa ilaa dhibkaasna waa igaaray anigana saana naafan u ahay adoogan dhinaciisa ka waalan yahay ku xirxiran yahay Soomaaliyeed waxaan rabaa inaad i caawisiin alla dartiis igu caawisiin furaha 2 67 63 maxaa ku qoran shukri aadan gaarane adiga hayso ana haystaa